بسم الله walaalaha sharafta meel kasta joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena nolosha dhabtaha oo badanaa idiin soo jeediyaan madrasada alkhayr iyo charity-ga alkhayr education and guidance center oo badanaa ummadda Soomaaliyeed aan rabno inaan ku wacyigelino oona ku saabsan nolosha dhabta ah. wiilkan arkaysaan waa wiil ila shaqeeyo gaarigaasaan ka wada shaqeynaa. gaarigaas arkaysaan vankaas anaa wado asagan run ahaantii wuxuu ka yahay ninkaas waraaqahaas ayuu ku shaqo leeyahay waana dejiyaa saa iga horreeyay shaqadan aniga waa un wadaa kaliya. marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed wiilkaas yarka ayaan warsanayaa. Jack, how old are you? 18. Are you working for yourself? Yes. For how long have you been doing this job? 3 months. 3 months. And do you rely on your mom and your dad? No. So you don't rely on anyone at all? No. So you're thinking on your future how you can have your own money, your own house, your own family? Yeah. And what do you think my Somali community, especially, youngsters and men, some of them are just relying and depend on other people. So what do you think, or what advice will you give them, especially and you're 18 years old and your agement? Want money, want nice things. Yeah. Work for yourself. Or for yourself, not rely on anyone. No. maasha allah walaalaha sharafta waad arkaysaan wiilkaani waxa weeye run ahaantii waxaa la yidhaahdaa Jack ani asaga isla shaqayno. marka waxaan la yaabanahay ummadda Soomaali sababta ay wiilasha yararka ah oo mataqaanaa dhalinyarada guriga ugu joogaan. hadda waxaad arkaysaa meelo badan oo Nairobi ay kamid tahay, oo Jigjiga kamid tahay, oo Xamar ay kamid tahay. run ahaantii inay wiilashii ay guryaha joogaan 25 sano soo la egayo guriga jooga cuntu sugaya. marka wiilkaas asaga wax fiicnaan lahayd in la yiraahdo waraabti dhageyso orodoo shaqayso oo isdabar naftaada. run ahaantii waad garanaysaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam asoo 25 sano ayuu guursaday. wuxuu u shaqayn jiray waliba dumar buu u shaqayn jiray. يعني وحاوي وقف اسكو تشدوي اسو يرى ايا متقانا ميل اسكو سو ساري wuxuu guursaday waad garaysaan umul muuminiin Khadija bint Khuwayla ayuu guursaday. marka programmadan oo nolosha dhabta ka shaqeeyna waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inuu wacyigelino warnimiyaho ummadeena Soomaaliyeed dhaqaale u baahan tahay. dhaqaalaha dad yaraa mataqaana ayaa run ahaantii shaqeeyo sidii loo badan yahay dadku way iska fadhiyaan. waxaan u baahanahay waliba waxa aad iyo aad aanan u xumahay wiilal dhalinyarada ah oo run ahaantii 25 sano 24 sano meelahaas jiraan oo Nairobi guryaha fadhiyaan oo Xamar fadhiyaan oo halkan laga beelayo. war ragga halkan joogay gabdhaha halkan joogow run ahaantii waa khalad wiil walaalka inaad lugoyso oo aad waa ku beela cunto cun. anigaan Cusmaan iska bilaabay kulligoodna dad wada shaqaysanayaan waxaan dhahay waa idin lugoynaya. marka maxaa yeelay hadda biri hadda dhimatid adiga ina adeer walaashay ya beelaya. marka Jack, thank you very much for your kind advice for my teenagers, Somali teenagers, and those who are just not working. Now you can go in the car and then I will come and drive. walaalaha sharafta le meeshaan joogto waxa waaye outside London. waxaan wadnaa gaarigaas oo mataqaanaa waa building materials, waa alaab culus waaye. wiilkaas yarka ah iyo waa qaadaya uu geynaya shaqadan shaqo ka sii horeyso xamaaliya ayuu ka shaqayn jiray. wuxuu yiri aniga nafteeda u shaqaysanaya. abiis waa nin lacag la waay, laakiin abiis wuxuu yiri shaqayso. marka war idageyso ummadda Soomaaliyeed waxa iskaga yaacday qaraabo xariirinta iyo lugoynta waa iskaga yaacday. war fiiri hooyada waa qasab waa, aabaha waa qasab waay, qaraabadan waa marka sadaqa ayaa ku baxda waa in la siiyo. laakiin walaasha oo nin qabo ayaad beelaysaa. wax caruurtaada Yurubti Mareykanka jooga dhuuntaas haysaa. aabaha waxaan rabaa walaalka oo dhalinyaro oo 25 jir ah oo wiilka hadda 18 years soo jira cadaanka waa English, wiil English waa shaqaysanaya 18 sano jira. wiil 24 sano la lugoyno leeyahay ana ku soo beelaya dibadaan jooga cuntada iyo cun guriga iyo fadhi. marka meeshan wiilkana waad arkaysaa gaariga seerka delivery ku soo biya waliba dada u wada. anigaas maanta darwalan ka ahay asaga, laakiin xamaali buu ku yahay. markaan war Nairobi joogtay guriyaha ma tagtid, guriyaha ma ka shaqaysid, ما متقانا دروولين تلا شقيست، ما تندبوي نقطي، ما متقانا إن دكامة كشقيست، ما كلينا نقطي، ما متقانا إن حافظ كسر تجرين توا وباهين ضد الشقية. لكن هذا كبر كوجره متقانا هذا يكوتها الله. لكن وحقيقة سيدرون أدي أدو حماي إن ومدة الصومالي وحن وعي قلنا charity عن الخير education guidance center ودad kan rabnaa inaan wacyi gelino oon mataqaanaa hagno. run ahaantii wiilkan dhalinyarada oo meesha iska fadhiyo adigaas Nairobi London joogo ama Mareykanka joogo ama joogo mataqaanaa Yurubta ayaa lu goynaya oo shaqaysan lahaay. waxaad leedahay ku soo biilay ama ku dhoofin aad leedahay meel ay fadhi
war haddaad dhoofinaysa anki ha shaqaysto cuntiisa soo saarto meel kasta shaqaa taallo laakiin dhibka jira kibir aan nahay maqaayad wiilka ark waxaan arkaysa walaalayaal waxaan ujeeda wallahi waa xamaali waaye waa kuwii dhabarka saari jira dalkeeni ma xasuusta yani dalkeeni waxaa jiraya walaalayaal wiilal ragga dhabarka saarta mataqaanaa xamaaliga iyo jawaanadii dhabarka saarta jiri kama duwanatan markaan wiilkan aabihiisa hooyadiis iskuma hadlaynayo oo walaalihiis iskuma hadlaynayo mataqaanaa qofu isku hadlaynaya male annagana wiilasheeni ayaa la goynaya oon biilahaynaa hooyada waa waajib aabbaha waa waajib mataqaanaa dadka masaakiinta waxay kugu leeyihiin sadaqo sii agoommada caawi laakiin gabadha walaasha ah oo nin qabto waxay kugu leedahay qaraaba xariirin walaalka oo nin qabo oo caruur qabo oo 7 cunug leh qaraaba xariirin mu kugu leeyahay wax kale uu kugu leeyahay ma laha markaan waxaan idinku wacdinayaa ummadda Soomaali meel kasta oo joogtaan in ku iigelinaa fadlan waa idin bariina dadka waa shaqaystaan Yurubtaan iyo Mareykankan horumar waxay u gaareen naagti baa shaqaynay ninki baa shaqaynay wiilka baa shaqaynay meeshaana annagana biila loo fadhiyaa وجودان بيل كان أنجوجينه هلا شقيستو إن شاء الله تعالى واللجوية بيل كدت كلا بيليا إلهي سبحانه وتعالى هنا بركة حدنا شغدا قليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.